بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan afur wanaagsan ramadaan kariim waxaan maanta usoo istaagay idaacadda saxaafadda horteeda in aan ka hadlo arrimaha degdega ah ee maanta xamar ka dhacayay maanta waxaa dhacay waxyaabo waaweyn oo taariikhi ah oo siyaasadda soomaaliyana taariikhi raad ku yeelan doono isaan rajeynayo raad nabadeedna ku yeelan doono weliba isaan rajeynayo marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo hogaamiyeyaasha madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ee galabta qaatay go-aanka geesinimada leh ee loogu danaynayo dalka iyo dadka soomaaliyeed ee ah mas-uuliyaddii dadkooda ay u doorteen iyo waajibkii dastuuriga ahaa ee ummadda ay ku laheyd ee ay u dhaarteen waxaan leeyahay hambalyo go-aan geesinimo leh xilkasnimo leh ayaad qaadateen taariikhduna way idin xusi doontaa maanta meesha ay soomaaliya taagneyd iyo go-aanka aad qaadateen intaba waxaan idin leeyahay hore ugu socda sidoo kale go-aano dhiiranaan badan u baahan oo kale oo ad adagaa idinka horeeya qaataan leeyahay iyaguna go-aanka adag markaad qaadatane oo maslaxadda ummadda u qaadatane sharaf iyo karaamo iyo ciziya kaaga kororto wanaagna wuu uga soo kordhaa ummadda hambalyaan leeyahay intaa kadib waxaan sidoo kale hambalyeynayaa isagana prime ministerka jamhuuriyadda xilgaarsiinta xukuumadda xilgaarsiinta prime ministerka ka ah injineer maxamed xuseen rooble saaxiibkay waxaan leeyahay adigana hambalyo adigana mowqifka aad qaadatay mowqif shariif oo wanaagsan waaye waa mowqifkii looga baahnaay inuu qaato qof prime minister ah oo mas-uul ah adigana waad muujisay mas-uuliyadaada nabadaad u helisay dowladnimadaad u helisay go-aan cadaad qaadatay waa ku mahadsantaa sidoo kale ciidamada qalabka sida meel kastoo ay joogaan waxaan kula talinayaa inay qaataan awaamirta prime ministerka oo sidoo u tilmaamay xerihii inay ku noqdaan la yiri ay ku noqdaan oo ay waajibkoodii dastuuriga ahay ee dastuurka dalka inay ilaaliyaan ahaydna inay dastuurka dalka ilaaliyaan dastuurku waxa uu farayana ay u farmaan way u dhaarteen dalka diinta iyo dastuurkaba dadka diinta iyo dastuurkaba way u dhaarteen waxaan leeyahay marka dhaartaas fuliya waxa dastuurka uu qabo fuliya waxa dastuurka idin farayo muxuu ahay fuliya waajibaadka iyo maxaanku irahdaa awoodaha dowladnimo muxuu ahay tixgeliya ee sharciga ku salaysan iyo wakhtiyadaada intaas waxaan rabaa rajo wanaagsan ayaa maanta galabta afurkan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto soo muuqatay aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa 9 bilood ka hor ayay ahayday markii aan ku baaqnay in dalka doorasho uu aado siyaasadda doorashada laga hadlo laga heshiiyo wada ogol lagu saleeyo anoo tixgelinayay waay qadarinayeyna kuna baaqayay waayo aragnimadeyda iyo duruufaha dalkeena soomaaliya maanta uu ku sugan yahay marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta in badana waxaan dhahay wadada lagu socdaaya ha laga leexdo bila soomaaliya shirar ka soco jireen teendhadiiyay joogaan caawa waa ku faraxsanahay in teendhadii lagu soo noqday intii aanan sidii aan sheegay hadalka intii aan ka baqay aanay dhicin oo ahayde annagoo boorsooyinka sii xirxiranayno dibadda usii socno aan la arag waxaan leeyahay intii intaa ku taliday iyo intii horey u qabtayba ee ra'yigaas qabtaba aad iyo aaday u mahadsan yihiin dadaa mar hore fahmay qabay haddana wanaaggu mar kasta oo qofku uu qaato lagama soo wanaag daahid ma laha expirena ma noqdo walaalaha kalena waxaan leeyahay adikana sidoo kale waad garateen maanta marka waxaan leeyahay haloo noqdo caqligu ha shaqeeyo madaxweynaha muxuu muddaxileedkiisa dhammaadayna ha garto intaas odaytinimada inta u dhiman sharaf iyo karaamo iyo heybad ha ku qaato go-aanada maanta la qaatay go-aano masiiro aada u fiican waaye maalin ay intaan ka macaayeen ka qiimi badnaayeen in la qaata ay ahayd waa jirtaa laakiin haddana weligeed ma soo daahdo waana ku mahadsan yihiin waana bogaadinaya waxaan rabaa inaan usoo jeedo dadka soomaaliyeed barakaca iyo qaxa magaalada ka dhacay waa ka xunnahay waxaan anagu raalli ka nahay maaha weligeen maanaan keenin weligeen colaad kama shaqaynin taariikh uma lihin inaan colaad ka shaqeeyo anigu taariikhdeeda dadka soomaaliyeed way garanayaan in badanaan waxaan ku baaqay dadka xilka iyo mas-uuliyadda loo dhiibayo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii gadaala ha la eego
fursaddaasi 4 sano ka horaan mar hadalkaas aan jeediyey. maanta waxaa laga yaabaa fursaddii oo kale inay soo wareegto dadka soomaaliyeedow mar kale yaanay taladu idinka qaldamin. dadka inta aad u garataan mas-uul inay yihiin waxa ugu fiican oo qofka lagu aaminana uu yahay qof aamina ma jiro, nidaam aamina ha jiro, qof nidaamka aaminsan, dastuurka aaminsan, qadarin iyo tixgelin u haya rabitaanka ummadda soomaaliyeed ilaashada. dadku ha degaan, nabadaa jirto, colaadi ma jirto. 90 loo noqonayaa dadkii meelaha ku qeyli jira horaan ugu sheegay inaan 90 loo noqonaynin. anigoo ka mid ah midowda murashaxiinta iyo madasha badbaado qaranba saaxiibaday ra'yigaasaan isaga midnahay, nabadaan isaga midnahay, deganaanshahaan isaga midnahay, siyaasadda in wada hadal lagu dhammeeyo kala aragti duwanaanshahaan isaga midnahay, dadka in afkaartooda iyo fikirkooda lagu ixtiraamo oo aan lagu colaadinaan ka midnahay. dowladdu ciidamada amniga ah siyaasadda ha ka dayso in badan ha dhahan. intii yareedoo la siyaasadeyna dhibaatada ka dhacday maanta waa la arkaya. waa taa aan leenahay qaxa ha laga joogo dadka oo maxaan ku raha baraka yaanay qaxin. ciidamada amniga sida uu prime minister ku amray xeryahooda ha ku noqdaan. awaamirta dastuuriga ana ha ilaaliyaan, hana qaateen. amar kastoo aan dastuurka sharciga waafaqsanayn inay diidaan ay xaq u leeyihiin ha diidaano. sida kuwa badan oo geesiyaal ah ay muujiyeen oo ay yiraahdeen maya dastuurku waxaan u qabin mana lagu xukumaayo mana yeelin. sidaas waaye sida saxda ciidamada laga rabo. waxa dastuurku qabana inay yeelaan, waxa dastuurka uu diidan yahayna inay oo ay ilaaliyaan, difaacaan dastuurka sida u dhaqangelahay. lanna dastuurku waa waxaan shalay kusoo heshiinay, aayaad munazal maaha. shalaan kusoo heshiinay, haddii wax ka qalloocdaan maanta waa isu imaanina, haddana waa ka heshiinayna. dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa mar kale deganaansho, nabad iyo in ay ku kalsoonaadaan xalku inuu mar walba ku jiro siyaasadda iyo wada hadalka. madaxda